taliska booliska degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa xarunta saldhigga booliska ee magaalada ku soo bandhigay aabbo wiilkiisa habeennimadii xalay ku gowracay xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoona aabbahan wiilka gowracay isla xalay uu ka baxsaday goobta uu falka uu ka dhacay isla markaana uu gaaray tuulooyin hoos yimaada magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe hayeeshee booliska degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa halka uu gaaray ninkan la sheegay inuu gowracay wiilkiisa gacanta ku soo dhigay isla markaana dhigay saldhigga booliska ee degmada Jowhar taliyaha saldhigga booliska degmada Jowhar Maxamed Siyaad Calcanjeex ayaa faahfaahiyay ninkan la sheegay in uu gowracay wiilkiisa iyo waliba sida ay u soo gashay inay gacanta ay ku soo dhigaan maanta shirkadda jirada wuxuu ku saabsan yahay dhacdo shalay galab maqribadii ka dhacday magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda Horseed marka waxa dhacday aabba ayaa wiilkiisa ku dilay حالي مغربدي حلي قاعد يكون تونس على مغربدي وده حيسو الحمد لله إلهي قدرت مثل ما شكوا تجنع إلى مدة بلوسك مشي تجنع كوبحان لبك ماشي كان عيا أركان كدبنا وحيد بقى لأن نكى يعني مرة لبك جيستي أو أبوه هاي ويلك أو لا دلي صادرتها وحين نوصورة شحالة تونس عبارة إنك سوق قبلنا تولد هلجن سيدا درتها ما أنت وحكوا حرينا سلقة بلوسك دقيقة جور بلوسك أيانا قعنتك وهايو wixii faahfaahin oo dambe oo yani maaragtay sheeg maxay ahayd aan kala kulana ama baarisiisa ka soo baxnay dib ayaan u wadaagi doonaa warbaahinta dawladda insha Allah dibka sababaha dhaliya hadda baarisiga ku jirta arintii ninkiin dib ka geystay uu xiran yahay yani maaragtay booliisku wana marka hor dhici karno barkay qofku waxa macquul xataa ninku inuu amwaalna kariyo ama markaas ay xaaladiisu isra caadihin ama beledkan waad ogtaa mukhadaraadkiisa badan mukhadaraad inuu cadays suuragal laakiin arintiisu baarisiga ku jirta dawladda insha Allah marka jawaabta ugu dambeysana waxaan la qaybsan doonaa maxkamadda ay khusayso iyo yani maaragtay saxaafadda dawladda falkan ayaa mid ugub ku magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe marka loo eego dhacdooyinka kale Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar